عبده ورسوله، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، iyadoo in badan laga hadlay mawaadiic guud oo ku saabsan Soomaaliya ama ummadda muslimka guud ahaan iyo xalka loo hayo, waxaan maanta isku dayayaa inaan taraf ka gedisan ka hadlo ama dacal ka gedisan oo caa'ilaadka muslimka ah ama dibadda jooga ama gudaha jooga, inta badanna kuwa dibadda ku nool, iyo dhibaatooyinkoodan joogtada ah sida loo xalili karayo ama wax looga qaban karayo. waxa muuqata muuqaal tilmaamaya dadkii Soomaaliyeed ee dibadda u soo baxay inay ku badatay isdilka caa'iladu ama qoysaska iyo muranka dhex maray iyo furiinka iyo reeraha kala tegay ama si sabaqaydka kala qaatay ama si talaaq kama dambaysaba galay ama si dirqiga ku wada jooga. mashkilaadkaasoo aada u tiro badan, aada moodana dacwadoodu inay ku soo gaadhayso meel kastoo maanta Yurub iyo North America aad ka martaba. maxaa sababay? dadka badh waxay isku qancinayaan dumarkiibaa waxay yimaadeen meel xorriyad badan ay ku heleen oo markii hore la cadaadinayay, dabeetana wandegada power markay gacanta ku dhigeen powerkii ayay si tacasuf ku jiro ama xadgudub ku jiro oo isticmaaleen. dadka badh ayaa waxay leeyihiin mashkiladdu waxay ka timi cultural shock ummadda ku dhacay ama dhaqamada isburinaya oo iyagoo dhaqan islaamiya dadku wateen ayay waxay u yimaadeen dhaqan gaaleed. dhaqankii gaaleed baa jawaanib badan ka raadeeyay dadkii muslimka ahaa. waxaan odhan karnaa waxyaabahaas oo dhan waxbaa ka jira. waxyaabahaas oo dhan waa dhici karta in wax ka jiraan, laakiin xaqaa'iq badan oo ka waaweyn oo laska indhatirayaa jira. waxaan jeclay inaan markaasi bal waxoogaa bayaamiyo dhibtu markay timaado sida diintu ina tiri u dhaqma, iyo qoyska muslimka sida layna yidhi u dhaqa, iyo raggu qawaamadii la siiyey inuu ka soo baxay iyo inaanu ka soo bixin. alla wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala: wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shayئa wayajcal allahu fiihi khayra kasiira. alle wuxuu kitaabkiisa qur-aana ku leeyahay wacaashiruuhuna bilmacruuf, waxaa kula dhaqantaan baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala haweenka bilmacruuf, samo ku dhaqanku waa fariidatun cala arijaal, waa waajib saaran ragga inuu guriga samo kaga dhaqmo. aayadda inteeda dambe waxay inoo tilmaamaysaa oo qofka mu'minka ah ku dhiiri gelinaysa inay dhici karto wuxuu qoonsadaa inay yimaadaan. ninow baa ilaahay leeyi way dhici kartaa waxaad qoonsataa inay timaado, way dhici kartaa inaad cadhooto, way dhici kartaa nacaybku inuu meel kaa gaadho, laakiin ilaahay wuxuu inoo firayaa daaqad amal ah, rajo meelaanay ka go-in. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay arrinku horta sidaa wax idinku u qiimaysaan oo keliya ma aha waxaad adigu isku buuxisay istiri meeshan waa raja kama soo jeeda gabadhan iska kala taga ama ka fogow. ilaahay wuxuu leeyahay fain karihtumuuhunna, war haddaan nacdaan baa ilaahay ilo karaahiyeysataan oo necbaysataan, haddaad kahataan facasaa an takrahuu shayئa. facasaa waa xarfi taraji
inta badan waxaa la yidhahaa luqada uu qur-aanku isticmaalo hadduu lacal la isticmaalo mufasiriinta qaar baa waxay yidhahdaan meel kastoo lacal ay kusoo aroorto xarfu tacliil ama kay baa loo macnayn karaa bay yidhahdaan ilaa iyo aayadda lacalakum takhluduun mooyaane oo ay yidhahdaan kaanakum takhluduun baa lagu tafsiira. casa oo xarfu tarajiya haddii isagu qur-aanku isticmaalo bay yidhahdaan inta badan wuxuu u isticmaalaa litaxqiiq ama wax yani waaqac dhacayo la sugayo. kaanama alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala facasaa an takrahuu shaya wayajcal allahu fiihi khayra kasiira. war waxaa la arkaa baa ilaahay leeya inaa wax nacdaan, laakiin waxaa la arkaa waxaanaa nacayseen in khayr badan in ku jira baa ilahay yihi. waxaanaa nacayseen naftu waxyaabo badan bay nacdaa, laakiin ilaahay wuxuu leeyahay nacistiina asal ma ahee khayr badan oo kalaa jira. walidalik ba ilahay waxyaabaha ugu ajarka badanle mid kamida wuxuu ku tilmaamaya kutiba calaykum alqisaal wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shaya wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shaya wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu waantum laa taclamuun. aayadan kale waxay aayadda hore la wadaagtaa mas'alat lkurh, qofku iyo waxa uu naco. aan laynoo sheegaya subxaana watacaala jihaad baa laydinku faral yeelay baa la yidhi dagaal inay naftu gasho oo ay khatar mawqifka ay istaagtaa waa wax naftu necab tahay baa ilahay yidhi. laakiin nafta necbaanshiyaheedu waxaa suurtagala baa ilahay yidhi inaa wax nacdaan oo uu khayr idin yi. waxaa kaloo la arkaa baa ilahay leeya inaa idinku wax nacdaan oo wax jeclaataan oo waxaanaad jeceshiin shar yahay. yani miqyaaska ama waxaa wax ku qiimeynaysaan had iyo goor sax maaha baa ilaahay leeyahy. wax badan oo aada necab tahayna in wanaagu kuugu jiraa laga yaabaa, wax badan oo adigu aada jeceshay amaad yididiiloonaysana in xumuhu kuugu jiraan. markaasaa weliba ilaahayna tambiihinaya wuxuu leeyahy wallahu yaclam wa antum laa taclamuun. war idinku wax ma ogidin amase wax garan maysaan ee ilaahay baa subxaana watacaala wax garanaya ee axkaamtiisa raaca. waxaan leenahay qoyska muslimka ah si aan dhibo ugu dhicin waxa u asala inuu ninku qawaamada leeyahy ama maamulka leeyahy. maamulka ninku leeyahayna waxaa alle ku tilmaamaya subxaana watacaala inuu u hayo maamulkaasi si samaa. kelmadaasi wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayru lakum ta ayaa wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa laa yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha aakhara. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yafraku ay laa yabqad uma cadhooda buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof mu'mini gabadh mu'minada haddii uu dhaqan ku naco buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. hadduu cadhoodo hadduu yani dhaqan ku naco wuxuu ka helayaa mid kaloo uu ku jeclaysto. yani qof ah absolute value wato oo wax walba ra-isku oo saxni ma jira buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. haddaad wax ku nacdo qofka kan ama gabadhani ay iin leeday ama waxuun ay ku liidato waxaad helaysaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wax badan oo kale oo gabadha lagu jeclaan karo. idan meesha maxaa yaala miisaan ah inaad wax badan isu geyso. waayo aslul insaan waxaa la tilmaamaya inaanu sayi-a waayin. xataa jannada ma wax ka qaalisan baa jira? janno wax ka weyn ama ka qaalisan ma jiraan oo nimca oo la helaa. waatuu nabigu ku tilmaamaya mawduuc sawt meel shaabuug la dhiga ama la dhiga baa ka khayr badan dunida iyo waxa yaaloo dhan. jannada noocaasiya waxa lagu gelayo ama miisaanka lagu galo ilaahay wuxuu ku tilmaamaya faman saqulat mawaasiinu. saqlu miisaan baa la sheegay maaha absolute value. qof aan dambi lahayni meesha ma joogo ambiyada macsuumkaa mooyaane. ilahay wuxuu leeyahy faman saqulat cid ay cuslaato sida daraajeed buu nabigu wuxuu leeyahy war haddaad wax xun ku aragta waxaad ku nacdo haddaad aragto waxaad helaysaa buu nabigu leeyahay wax kaloo aad ku jeclaato. sida daraaddeed mu'min
mu'minadu ma cadhoodo buu nabigu leeyay qof mu'mini gabadh mu'minada uma cadhoodo sababtu waxay tahay dhaqan uu diido hadduu arko dhaqan kale uu ogol yahay baa jira marka horeba guriga wuxuu yaqaanaa meel lagu dego oo nabad lagu helo oo qofku uu dhibaatada kaga nasto noloshu markuu qofku dabadda u baxay caadiyat alxayaat uu la macaamile la dhaqme kusoo dawaqo guriga wuxuu islaamku u yaqaanaa inay tay meeluu qofku xasilooni ka helo oo uu ku dego waxaana qur-aanku uu ku sifaynayaa marka xidhiidhka u dhaxeeya ninka iyo gabadhu inuu yahay xidhiidh kalgacal iyo naxariis ku salaysan إلهنا وحليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكون حسلوني إلهي وحليه آياتك علي علامات قدرتي في ويلدي سكمدا وحكتصني وحكمدا إنه إلهي نفتي إن كأبوري لما أنا كدك تنبى إلهي كو وجعل بينكم مودة ورحمة dhexdiinana naxariis buu dhigay sida daraaddeed haddii la rabo gurigu inuu dego bilowgiisa hore cala alxubbi wataqwa waynu ku dhisan yihin yani guriga bilowgiisa hore maadaama ay tahay meel aad ka rabtay inaad xasilooni ku heshid meel aad ka rabtay inaad ku degtid meel aad ka rabta mushkilaadka nolosha aad ka waajahdo inaad ku ilowdid waa inuu noqdaa markaasi wax marka horeba lagu dhiso cala almawaddati waraxma wax marka horeba lagu dhiso taqwa alle subxaanahu watacaala iyo kalgacal sitaas ay u dhacdo ayaa waxaynu naqaanaa nebigu yani waxaan oo dhami waa precautions waxaan oo dhami waa wiqaaya mushkilad baan anigu rabay inaan ka warrabo mashaakilka sida loo xalinayo laakiin islaamku laba shay buu yaqaanaa mashaakilku intaanu dhicin wuxuu ka hortagaa waxa mushkilada abuura markuu dhacana wuxuu sameeyaa wax lagu xalilo waa laba shay oo markaa isdaba yaala oo ay mas'ala islaamku waajaho labada wuu leeyahay marka hore wuxuu ku ilaaliyaa inaan dhib iman markay dhibtu timaadana weji loo xalilo labadaa shay buu dhigay inaan caylada dhibi ku iman waxyaabaha loo dhigay marka ugu horeysa inuu guriga ilaaliyo waxaa kamid a oo aynu leenahay waa inuu asalka gurigu ku salaysnaado xasilooni naxariis iyo mawadda waxaa kamid a waxaa la yidhi ninku gabadha hadduu guursanayo ha iska arko ha iska eego gabadhu ninka ha iska eegto waxaa laynoo tilmaamay waa miqyaaska wax lagu dooranayo waxaa la yidhi gabadha qurux badni iyo lacag iyo meel ay ka dhalatay waxaasoo dhame waa wax loo guursado laakin fasfar bizaati diini taribat yadaak buu nabigu tilmaamayay ta diinta leh ninka gabadha waxay ku dooranayso gabadha lafteeda in la afduubo maaha waxay ku dooranayso nabigu tilmaamay markaasa waxaa la yidhi gabadha muslimada ah cidda loo guurinayo waa kee wa idaa jaa hadduu idin yimaado baa la yidhi caman tardawna diinah wa khuluqa cidaa raalli ka tihin laba shay diintiisa iyo akhlaaqdiisa dadka badhbaa masalat alkafaa fi lfiq alislaami waxyaabo badan sheega labadaa shay oo qula ayuunbaa nusuus loo haya waxa kaloo dhami waa ra'yi nin caalim uu qabo ninku doonaba ha ahaadee labada mas'ale kafaa ee loo hayo wax ku saabsan daliil waa diin oo horeeyaa mushrigu ma guursan karo gabadha muslimada ah iyabaynu leehay ama ka labaadna waa khuluq akhlaaq fiican oo zaaniga iyo kuwa waa ka fi suurati nuur ilaahay ku tilmaamaya zaanigu inaanu guursanin la zaaniga mooyaan labadaa masalo keliya ayaa wax nusuusa le mas'alatu lkafaa marka la yimaado waxa kale wadaadadu sheegaan oo dhan nusuusta inay khilaafsantaa laga yaaba ولذلك baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya ama nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxay inoo tilmaamaysaa for precaution ama ka hortag daraaddeed inuu gurigu marka hore ku dhisnaado kalgacal iyo isdoorasho iyo qasab inaanu jirin haddii inanta marka hore ninka lagu duduuco oo laba qof oo silka layska geliya ay noqdaan waxa adag noloshoodu siday u degto sida daraaddeed ayaa waxaa culamada muslimiinta tilmaamayaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaamna si sariixa uga cad inay gabadhu marka hore doorasho wax ku guursato xadiis alansaariya baa idinkaga fidan alfataat alansaariya gabadh dhalinyaro ansaarta kamid ahayd
ayuu aabaheed u xusiyey inuu yaroo agoon uu soo koriyey oo ilmaadeeniye yani arabta waxaa caadigeed had iyo goor ilmaadeerku inay isguursan karaan. dabeetana odaygu inantii wuxuu la jeclaystay inankanuu koriyey de isna reerka kamid inuu u guuriyo, labadiibuu isu guuriyey ama uu rabay inuu isu guuriyo. inantii way cadhootay, nebiga u tagtay, su-aal bay weydiisay. waxay tihi aabahay wuxuu doonayaa inuu kor igu soo qaado khasiisata bna cammi, in adeerkay oo mid liita ayuu doonayaa inuu aniga igu kor yeelo, kaas buu guurinayaa bay ku tiri ilaahay rasuulkiisiiyo. ana dooni maayo bay leedahay. marka wuxuu tilmaamay nebigu markaasi inaanu odaygu xaqu lahayn inuu soo tar u galo inanta, ee cidday doonayso in loo guuriyo haddii diinteeda iyo akhlaaqdeeda raalli leeyahy, laakiin in la qasbo inaanay meesha ku jirin. gabadhii dabeetana waxay tihi markii odaygii arrintii la aqbalsiiyey ayay tihi qad anjaztu, waan fulinayaa bay tihi wuxuu aabbahay yeelay, laakiin anigu masale kalaan rabay bay tii. waxaan rabay inaan dumarka u sheego odayadu inaanay arrinka waxba ku lahayn. gabadha waxay leedahay odayga waan aqbalaya aabahaya, siduu ku taliyeyna waan raacaya, laakiin masalada waxaan doonaya inaan sheega bay leedahay oo aan dumarka baro inaan meesha qasab ku jirin. qasab ma jiro, labada qof haddaanay isdoonaynin nolosha ma hagaagto. qisatu bariira baa idinkaga filan. gabadhii bariira la odhan jiray waxay ahayd gabadh muslimada oo addoon ahayd. dabeetana caaisha ay gabadhaasi addoontii mukaataba bay la gashay ciddii haysatay, lacagta intaa leg hadday bixiso in la xoreynayo. sharday ku xidheen ay idhaheen walaagaagana waa inaan anagu yeelana, walaagii walaalcadqi ee hadhow lagu yeelan lahaa dhaxalkeedii waxaan waa noo shardi bay idhahdeen. gabadhii oo dadka muslimiinta wax weydiisanaysa caasho soo martay. caaisha radiallahu canhaba waxay tidhi aniga ayaa kaa bixinaya waxaa lagaa doonayo oo xorriyadaadana ku siinaya, laakiin waa inaan walaagaaga anigu yeeshaabay tiri, iy kumay xoreynin iyagu anigaa markaa ku xoreeyey. masaladii baa nabiga loo sheegay, qoladiina way diitay, waxay dhahay may walaaga iyaga ka tanaasuli mayno. masaladii baa nabiga loo sheegay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi caashaay xoree, waxay doonayaan ay leeyihin walaagu waa noo shardina, ka aqbal, sidaana ku xoree. shardi aan ilaahay kitaabkiisa ku ololina asixi maaye. weligood ba ha sheegtaan iyagoo ha idhahdaan caynka waa waxaan waxba ka jirin. sidii bay caasha arrintii ku fulisay. gabadha tan waa la qabay, nin muqiis la yidhaahdaa qabay oo isna addoona. gabadhu markay xorowdo waxay xaq u leedahay markaa inay la joogto ninkeedii addoonka ahaa iyo inay diido oo ay markaasi caqdigii sidaas ku burburo. dabeetana waxay dooratay markii xoolihii laga bixiyey ee ay xorowday xorriyadeeda heshay, waxay dooratay inaanay odaygeedii hore la sii joogin, ay xorriyadeeda qaadato. odaygu se aad buu jeclaa, mugiis aad buu jeclaa. culamaa siira o taariikh waxay wariyaan madiina, suuqyada madiine inuu mari jiray isagoo ooyaya, yani gabadhan kalgacalku u qabay iyo meeshay kaga dhegtay wuu ooyi jiray isagoo ilmaynayuu suuqyada madiine mari jiray. markaasay saxaabadu u tilmaamtay nabiga yani ninkan isuu gabadhan u jecel yihin iyo gabadhadan isay u diiday intii aanay rabin inay ninkan la noolaato. arrintii intuu nabigu ka naxay ayuu ninkii ergo u noqday. bariir u yimi nabigu isagoo ergeynaya, wuxuu ku yihi bariiraay guurso oo ninka kan ha ku qabo. su-aal bay nabiga weydiisay, waxay ku tiri ma aamir baatay mise shaafici baatay? ma waxbaad ifaraysaa yani waa amar, wama kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyara. marka ma aamir baa tahay? ilaahayda qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya aliya rasuulkiisu hadday wax amraan qofka mu'mini doorasho kama leh, waa waxyi xagga alle ka yimi, waa in la furaa, waa in la fuliyaa. waxay nabiga weydiiyey su-aala ma aamir baa ta waxani waa waxyiyo dee waa inaan saa yeelaba ilowbaylowa, mise shaafic baa tahay dee ergun baa tuuro erga muslimo haddii laga aqbalana dee laga aqbal, haddii laga aqbali waayana aanay wax mushkilada ku jirin. waa nabigu tilmaamay ergaan ahay buu yidhi, amar meeshan ma jire, adaa xorriyadaadana inaad guursatee, laakiin ergaanay ergada ma yeelin bay tiri mar hadday arku caynkaatay. way diiday, waxay ku adkaysatay halkeeda ahayd inay xorriyadeeda qaadato. waxaan uga jeedaa waxaroon gurigu inuu doorasho ku dhismo, doorashadu inay diin ku salaysan tahay, qofka diintiisa iyo caqiidadiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa marka laga raalli noqdo in la isguursado. walidalik
guriga gilgilankiisu aada buu xun yahay nolosha gebigeedugana waa guriga deganaanshiyeys wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiis ka asaxay man baata aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi ninka hoyda ee barya habeenkii fii sirbi ay fii qawli aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo ninka habeenkii seexda ee ku barya isagoo caafimaad qaba laba shay nabadgelyo gurigiisii ku seexday caafimaad qabna uu ku jiro uutu yawmihina haysta maantaa wuxuu cuni lahaana haysta fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha buu nabigu yidhi kaasi adduunka gebigiisiba isagoo duuduuban baa loo ururiyey yani wax kaa maqaniyo jiraan haddaad reerkaadii adigoo isku fiican oo nabad qaba oo waxaad cuntaana aada haysataan waasami kuu beriyo hadda adduunka sad kuguma hadhina aakhira u raadcee shadkii adduunka u dhan yahy wax ka hadhay oo dambe aad sii raadcaysaa meesha ma yaalay waxay leenahay marka wuxuu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ama ilaahayba qur-aanka inoogu sifaynaya inuu marka hore gurigu noqdo guri isku xignaankiisu ay gaadho xad la yidhaahdo huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna miyaad jeceshahay dharkaagu inu fool xumaado markaad marada iibsanayso war maro qurux badan oo ilaago in badan baad iska qiyaastaa marada iskama geshatid ma tidhaahdeen waa maroo dee jidka way qarinaysaa ee gasho ee maanta o dhan waxaad egeegtaa fuulkeedu intuu legiyo balladkeedi iyo dherarkeediiyo say ku leekaan lahayd kullu dalik waxa weeyaan inaad nafta raalli geliso sida aanad u jeclayn marada noociyaad kamid a inaad qaadato ayay ku habboontahay marka hore reerka la guursanaya noociyaad gaara inuu ahaado waxay leenahay marka kuwaasi waa wiqaayaadkii guriguna marka hore inuu qaabkaasi u dhisnaadaabaa habboon waxaa habboon inaan furitaanku iyo mushkilada timaado xalu raadinteedu awal khaatira ay noqon laba qof oo wada jooga kolley waxay isku qabtaan la waayi maayo marka ugu horeysa aad qabataanba inaad ama furiin ku degdegin ama darnad ku degdegin ama dawaq ku degdegina wax badan inaad u fiirsato walidalik ayaa alxaafid dahabi oo caalim min culamaai taarikh walxadiid ah caalimka xaafidka la yaqaano waa ninku ibnu xajar baa la yidhi biyaha zamzam wuxuu u cabay ilaa xifdiga xaafidu dahabiy oo kale aan helo ibnu xajarka taqaani yani wuxuu ahaa caalim marmuuq min culamaai lmuslimiin kitaabkiisa la yidhaha kitaab alkabaa'ir ayuu qisu ku soo aroorinaya qisada wuxuu ka soo aroorinaya cahdigii cumar wuxuu yihi waxaa la sheegay siqatu rumiya buu ku wariyay lakin waa iska qisa insha allah waxaa la sheegay buu yihi inuu nin cahdigii cumar soo qabtay cumar markuu madaxda muslimiinta u ahaa buu nin soo qabtay isagoo raba inuu ka ashtakoodo gabadhiisa akhlaaq xumadeeda ama dhib ay ku samaysay isagoo ka cabanaya ayuu soo tegay baa la yidhi gabadhu ka dacwayay cumar buu albaabkiisii istaagay isagoo sugaya bal cumar hadda markuu soo baxo yara ixtiraamayo isla waxba amiirulmuminiin guriga ku garaacin bal hadda markuu kuu soo baxo adeegti markaasuu wuxuu maqlay bay leedahay qisada tani cumar oo gabadhii intay la hadlaysa ay hadalka ku taagtaagayso xaafadii cumar ee usoo ashta ka tegay ayuu maqlayo cumar xaaskiisii markaa si ay cumar la hadlayso hadalkuna yaro taagtaagay ay kor u hadlayso gabadhii markay cabaar kor u hadashay ayuu ninkii aamusay oo dhegaystay markaasuu wuxuu kala arkay cumar oo aamusan oo aan waxba ku celinin gabadhi inay weli hadlayso dabeetana ninkii wuxuu yihi waryaah guriga amiirulmuminiin kuwa haduusa iyo malaa dhib badan adna kuma haysatee waar iska noqo laabashadii uu laabtay diinsa ka noqday ayuu cumar arkaa la yidhaho uu soo baxay markuu yidhi mar haddii guriga amiirulmuminiin kuwa doodani ay ka taagantay mala adna dhib badani ma jirto iska noqo cumar baa arkay ninkii oo sii socda dabeetana wuu u yeedhay wuxuu yihi maa xaajatuka ayuha rajul waarnimow baahidaadu maxay ahayd dhibta ku haysataa waa maxay buu yidhi wuxuu yidhi amiirulmuminiina waxaan kuu imi anigoo ka ashtakoonaya dhaqan xumo gabadhayda aan ka dareemay iyo hadalku ay gu dheerdheeraysay markaasaa waxaan maqlay iyadoo gabadhii ay kula hadlayso adna aada aamusan tahay dabeetana naftaydiiba waxaa ku yihi xaala amiirulmuminiinkii u wara ducaynkan yahay
هذه مشكلة لكم هاي ستاسكت عمر بن مركان نكي الله علي أقول يا أخي عمرت نكي الله علي ولكم إذا هذا الكيشي وحكم إذا إني أحتملها لحقوق لها علي يقول وحاس أي جواب الشافتات مقلسي ونضل قاضنا يا ونصبر يا بولي وهي حقوق أي ولا ذاك لا نجا هي كربولي يعني ولا وقف وضنا مثل حقوقك كان لي كل وحكيرا وحنا نافذ فقالوا لي سيدا برسل ما يو أما وحي يروي وحيابا يروي وبعميرو عن كيف سؤال سمي منوع الشيء يا مركز إنها لطباخة لطعام بولي قبلنا للراشين كي كرفة خبازة لخبز فوجد يديك مستدي وحنوي حشته غسالة لثيابي نركيه ميدا مرضعة لولدي إنها ينجسا وليس ذلك كله بواجب عليه وحاصل نعيدكم على حبوث جمهور العلماء كالسوقلية كراقبة الشراك جمهور العلماء وحي قبان قبل هنا الحق والله هنا يتركوا ميدا وحي قبان هنا الحق والله هنا يراشكوا كرسو وحي قبان حتى قال كمدي إن الحق ولا ذي كذا يوكري حتى الراشين كيدنو كانت بعض علماء الفقه وحي قبان نفقد إذا واجب كواه حتى أقول كذا نفقد قيدين سنين هي وين الخادم قبل طابين هذا نكريه هنا يلو كرسطة ما سيرو عنطه إذا عمروح له الجواب خاشيكنا وين كرسا نركنا وين ميدا وحاصلنا بيه قبطا إنه أنا وين مجلسا جورد وحاصلنا لكم يقول يا عمر وحكلا عمر ويسكن قلبي بها عن الحرام إنه لش نوان وداقنا يا حرام أردن إذا ينورتبوا لي نلش نوان وداقا فأنا أحتملها لذلك وعلى يرعد مغلق سبوا لي تياربها كان ماشي كوكا بعض عمر ليه وحا تملك تاقيه وحا نقول القعداني يقول يا ريطة يعني عمر روحه تلماما يا حقوق ليه ويا هدين شفته إنه سنشي له حقوق داراد ووضا سيد راجد كومبرومايز تقال السماينين وديه وحلا يسكو عن عشان إن أنا نلاشو الصورة قال عين نلاشو ده قانون قناكم السعوتة وحي كسعوتة إحسان ترى بضل إحسان كوائنات كاد تنازوشو بعد حقوقك ninkii ba wuxuu yidhi amiirulmu'miniinku anigana haweenteedu waa caynka intaa aad sheegtayba waa qabataa buu leeyahy oo mid aanay intaa qabanin ma jirto cumar markaa wuxuu ku yidhi walaalkayow haddaba adna u dulqaado noloshuba waanu muddo yare dunida inta lagu noolaada waa iska muddo yare adna intaa dulqaada buu leeyahy ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walahunna mithlu alladii calayhina bilmacruuf وللرجال عليهن درجة ولهن هوينك وحي ليرين با إلهي حقا مثل الذي عليهن كنقول يمت كمدا إلا وقلت حقوق هوينك أيليه أن حقوق بطلات حقوق ندخل يدوحا كمدا حقوقات تربضا له وإلا حد النبي الله عليه الصلاة والسلام حتى عيد أمر إليه سجوده قبل بنا أمر لها إن كاد سجوده وحكول إليكم قبل حقوق حق والد كيد كحق بدل ما كعسمة الصادلة والله بدأ عوامل كوالد كيك من كده هرصانية هذه خلاف كبطة ولكن قال لي سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة لما دي حقوا وزنين دينار نيسا تابلار نيسا لكن هذه واحد مسلمين درجة القوامة أيام دابي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم وعلى الدمر ربه دمر كيغا قوامين وما ملكوضة هيا sababtuna waxay tahay waxa alla idinku fadilay iyo xoolaha bixinaysan idinku tiiriyay infaaqisa bixinay fadliga la sheegaya marka ama qiwaamadu dictatornimo ma aha la leeyahay ninkun ba guriga da xukumayo marka isagu wax walba waa inuu xukunkiisa ku socodsiiyo waxaan leenahay waxa weeyaan waxyaabo badan bay qiwaamadu wadataa maamulka guriga adiga leh laakiin من القوامة وحا كمدة منك قوامة نساء وحا كمدة إنه النقضة مد مربية ودبعسا ورشاك بدن ونحريف بدن ومن قوامة البيت إلهي بالقرآن في سوء كنت المامية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
ونفتينا هي أهلكينا بالي النار كدورة. يعني إذن كان مسؤولية إذن سعرانتي قرية التربية دي سيلة مسؤول كاهاتي سيدة درادي وحلو قبها هي أبياشي قرية شوقي إلى النقدان دد بعثا ما حق أن كنت هذا نقول أنا رشا وحل وكلا ضحى إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك هذا الله من قلبي هذاك أو إنجد قضاء ويكايا إلى هيبا إلى هيلي مهما أبتحي على الحق هذه حقا كنت أجل حقا هذا تقل نفسنا وهذه يقولوا شرطه دادكم بين كافر نام الله عركا ولذلك بأن يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل ما هو نقول إنك دادك حليلية قرابة وحكامية رحمك حاسي إنك دادك حليلية ما هنك أبان قدا ما هو نفس العضو إنما وناجي مثلا يجمع حانا أقول ماشا وانكشدنا لبا كفاص عطوني هذا يجي وناكو سميته وناكو مكابل قدام ده هرات ما سميني قف وناكو سمي مكان وناكو سميته وهذا بال قدام لكن أبغى حكوت الماما يا نيكا وحليل يوانيكا ما كان الله حماية إلا قوليه يسوي حليل كولي سوى وحين القرآن كبشير يا مؤمنين تمك الله سفانيه والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس كو أحد هذا قرصنية أولى الناس يا من عدد عرض على كقرصة وحاول مدن عند قولي نرشي كل وداكتا هوان تاضي يا عرور تاضي يدفن قولي كل شوغا وقولوا للناس حسنا إلى يحردتك ولا كلها يا مدن عدد ولا كتلاضا وعند مدن قولي الرقم مركو ساقلين أوامر واستعمال ما واحد لو قبوي واحد ما حيسانوا نقوم خلاص يسوى إشراف عامة كأنما هو مراقب ويوحك أوامر كنت تشيله يوم وتشيدوا الرواح تودع ويدو لكن وحويا دتك ولا كل هذه الليل ولا عدا كنت العضوح وورون عدا أكتاد شوكتا وعلينا النبي يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا وانا وينك وحنا إذا كنت دار مياين كوانية يقول لنا خير السميسات وايو فرق الله لا يا لقى أبو ريويل فرق لنا توصل رئيسا وسيط الله هذا تسكن بيننا التوسي سنة واتشميسا هذا كلنا يدعي وجهنا ولا تذكر راح يسكرتا وضعنا ولا كرتا يعني لابد نمشي waxay u baahan tahay compromise badan wali wada ruuxa u si tilmaamaya kaninka waayo isaga saaxib alqawama isaga mas'uuliyadda koowaad saaranta wuxuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ma akrama an-nisaa illa karim ma akrama an-nisaa illa karim wala ahanahunna illa la'in haween ma sharfo mid sharaf lemooyaane haweenka ma dulmiyo ma liidabaa nebigu yidhi ilaa iyo mid dawaca mooyaane isaguna mid la-iima khabiisa xun mooyaane nin haween la tirsanaya una kusoo taagan uno waxyo waxan baa dhacay inuu soo haya waxa weeya bu nebigu leeya waa la-iim waa shaacirkii carbeed waa tuna waman da aladi turdaa tajaayahu kullaha kafaa bilmari nablan an tucadda macayiba waa kuma buuri ninka dhaqankiisa oo dhan dadku raalli ka waday qofka waxaa sharaf ugu filan ceebtiisa wax tirsan inay noqoto in la yidhaho qofkani 1 iyo 2 iyo 3 qalad buu galaayo oo ku aqaana idan 1 iyo 2 iyo 3 marka lagu yaqaano de 97 kale oo wanaaga ayuu qofkii leeyahay waxaan leenahay haddii la rabo mushkilaadka caaiga in la xalilo waa in marka hore lagu dhaqmaa waxyaabaha tirada badan ee aan tilmaamayna inay ka yihiin inay dhibitimaado ka hortageedinayiin inay dhibitimaado ka hortageedinayiin guri kalgacal iyo maxaba ku dhisan guri isfaham ku dhisan gabadh iyo nin wada tashanaya wax badan isweydaarsanaya inaad adigu talada haysaa in la wada tashado wada tashiga la diido macnaheeda maaha waxay yidhahdaan qolada carbeed nin kastoo cadiima bay yidhaahdaan imraa cadiima baa ka dambaysa yani waxaa jirta inuu qofku maamulka hayo macnaheedu maaha dadka ka hooseeya inaanu la tashan inuu dictator hado wax walba hogaamiyo war nabiga calayhi salaatu wasalaam suu haweenka ula tashanayay mushkilaadkii ugu xasaasisanaa taladii xaaskiisa ka saartay mushkilaadkii ugu daraa maalintii xudaybiya mushkiladu dhacday loo diiday nabiga saxaabadii la socotay inay xajaan dabeetana heshiiska uu qasab noqday in la galo heshiisku nabigu gaalada la galay
heshiiskii ay dareemeen saxaabadu in laga bursaday muslimiinta heshiisyada qodobo adag baa ku jiray oo ay kamid ahayd maxay waxa gaalada ka yimaadee soo islaamee muslimka usoo jirada in dib loo celiyo muslimiinta se kuwa xagga ka yimaada inaan lagu soo celin xagga muslimiinta qodobo adag oo muslimiinta badh ay qaadin kari waayeen baa kamid ahaa ilaa xadgaalkii markaasi saxaabi markii dambe ahaa saxaabadii ugu adadkeyd markii dambe kamid ahaa laakiin waktigaa gaal ahaa oo ahaa ninkii muslimka safiirkii gaalada ka socday ee la qoranayay ilaa xad adadaygiisa uu gaadsiiyey inaan wuxuu nabigu sheegay meesha lagu qoray bismi illahi raxmaan raxiim iyo hada rasuul alla iyo waxa inaan lagu qorin u yihi war anigu raxmaan raxiimna garan maaye bismika allahuma igu qora buu yihi meesha mana garanaya buu yihi rasuul allah inaad ta ismaynan dileene maxamed ibn cabdillah anu ku naqaana ku qora buu leeyahy magacaaga heshiiskii nooca ahaa markuu nebigu galay ee uu saxeexay ayay saxaabadii liqi kari waayeen dabeetana way iska soo taageen nebigu wuxuu amray in hadyigii la wadayna la qalo timahana la xiirto cimrada inay halkaa ugu dhan tahay dabeetana la noqdo saxaabadii hadalkii uu ka dhaadhici waayey qofku markay xaaladu xad gaadho mar baad moodaa maskaxduba inay qafilanto saxaabadii saacada ka hor la yidhi nebigu candhuuftu tufay kala boobayeen waysadu ku weysaysanayay kala boobayeen rumaysnaayo yidhi naf iyo maalba ilaahay iyo rasuulkiisaanu u hurray ayaa marka ka weedhan laleeyahay qala oo kaakicibala waxay yidhahdaan culamaai alxadiid lacalahum kaanuu yantadiruuna nafka alxadiid madaha waxay islaaheen in uuna armaa alla nusuusta ma soo dejiya ila waxyigu markaa uu soo tegay muu goyne alla xukumkan mar uun muu nasakho ama wuxuun baa ka daba iman doone bal yaro kaasadiyo malaha wuxuun ba islahaayeen tii markay dhaqaaqi waayeen uu nebigu ku noqday xaaskii umu salama haweenaydiisii isagoo yaabana isida ilaahay rasuulkiisiiyo maxaad kala kulantay saxaabadii u leeyahay saxaabadii maanta shay cajiib oo aanan hore uga arag baan ka arkay ee waxay tihi xal baan hayaa mushkilada wax kaa bixiya waxaad yeeshaabay tihi haddii dee ay arkaan ficilkaagii inaad fulisay oo caynkan oo way arkayaan inuu arrintii waxyi dhab oo aan laga weeweecanayn inay tahay adigu intaadaa yar baxdo neefkaagana gawrac ka kuu xiirayana u yeedho oo ii xiirne markay arkaan inaad ficilkii adigu samaysay practically iyana markaa way samayn doonaan bay tiri nebigu wuxuu qaatay taladii umu salama dabeetana uu soo baxay neefkiisii buu gawracay dabeetana wuxuu u yeedhay ciddii u xiiraysay waa loo xiiray saxaabadii markay arkeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ficilkii sameeyey ficlan iyana waa fuliyeen iyagoo laakiin damiga raawi lxadiid muxuu lahaa ama saxaabigu muxuu lahaa wuxuu ku dhawaaday barka iyo barka kale inuu madaxa gooyo yani nimanku xalay meel gaadheen oo way dawakeen oo waxay u arkeen diintiiba in lagala liidiyo gaala ka bursatay iyagu dunya umay cadhaysnayn diinta alle inay weyneeyeen unbay la cadhaysanaayeen dabeetana wuxuu ku tilmaamayaa saxaabigu waxaan ku dhawaanay kuwii suxiirkii inay muddada madaxa isku geyno maalintaa waaban isulayn gaadhay buu leeyahy xirrimaad xumaadkii meesha ka dhacay waxaan leenahay haweentu xuquuq badan bay leedahay marka iyo gurigu ninku wuxuu u baahan yahay inuu in badan ka fakaro inuu in badan ilaaliyo in waxyaabaha waajibaadka alla faray subxaana watacaala wax badan ka hortago mawduucaygu ma aha inaan ka waramo dhaqanka guriga muslimka ah waayo kaasi wuu inala dheeraanaya haddaynu caawa isku dayno inaan ka waramo mawduucaygu waxa weeyaan sida loo xalilayo mushkilada guriga muslimka ah waxaan leeyahay markaasi intaasi waa in muqadima ama waa hordhac sheegaya in wiqaaya tiro badan la islaamku uu dejiyey si aan mushkilada uga abuurmin guriga laakiin waa basharkuna ma dhib waayo si uun bay u dhacdaa inay mushkiladi timaado wax la qoonsado una hore loo qaadan kari waayo un baa yimaada si uun baa labada qof midkood wax u tirsada maxaa xala marka waxaa xala baan leenahay inta la dul qaadan karo in la dul qaato ثانيا waxaa xala baan leenahay inta la qarin karo qoysku mushkiladiisa inta uu qarsan karaan cidina la ogaan karin inuu qarsado haddii laga maarmi waayo markaa in loo sheego inta dhadhow ee wax qaban karta waxaa inoogu filan gurigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigaa wuxuu yimi gurigii faatima oo inantiisiiya oo caliy bni abi aalib uu qabay dabeetana gurigii waa cali ka waayey
ما علمي بكير أين ابن عمك إن هذا الكامل بكير وأسيتر وحوضا وانه ما يوم دبا تنوع عروضه ويقبح وعلي فاطمة دبا تنوع حوضا مرنا دعي مرن كيوحو قارسي علي انتو عروضه ينسكبحه نبينا مركا علي قريه وكوان وشو الرادعي ينمو جواب الصايا يقول الصايا علي يوم ساجك ورده أيون الوجود ولبا قوين سيو ونعيتو بلانكا يردعي لين عيسى كمي وحوغا عيش أي كنت الله مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحلا قم يا أبا التراب قم يا أبا التراب أيها على كلها وعكاك عماشة أبا التراب وسوى عيدي كله يدكتين أنا يسو قد قيا أيها عكاك ماشي أبا التراب يعني وحا عدة قولا يوشا قلت فاطمة مشكلة وحوها النبي عليه الصلاة والسلام وعدي وقل ويد نبدو داها وحين لأني هو أنت مؤمن الضعة وحلق الرباية إنه نقطكو قرآن كشيغي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظه الله إنه نقطة موصول وننك يدع الداعدة ووحكو آمنا كصير سيرين النورطة وبين كيدا هقاتي ستة وعرورت يدا إلى شطة وننك يدا قول وقدك تميلو كل نسطو ويقول هو ميل لغا نسطو لبتي مشكلة دي نلاشا لغا لقلبي علم حليه مركز سبحانه وتعالى هدي مشكلة دو تماد حلول بينا هينا برك كاله الرأية لين ما أولا 991 قراءة إيا وحكا لطونا حلول ذا لين أوشيغي كاله الرأية ومشكلة دو مركز تماد لغود ضياء لغود دمية حلالك وحكمنا إلهي بقرآن في سوء كله واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إلهي وحليه قبلنا كم بغضاء النشوز كده اسكريون كده نشوز قوامحي وقوامة الرجل بيجيد النش أو النجوز وقرين waxay diidan tahay inay maamulkan hoos gasho taladu waa gaar in la wada tashadeen wax la isu sheegay caynkan laakiin maamul kasto dunida ka jira madax buu leeyahay ciidan ma sarreysa maamul kasto dunida ka jira gabadha haday maamul diid noqoto marka haday hoggaansan weydo oo ay maamul diid noqoto aqbali weydo sultada ninka ama guriga inuu waayeelkan ka taliyo haday diido taasaa uga cabsataan baa ilaahay أول موقف أما استبكى كوادع الصميسان إلهي وحليه فاعدوهن وروانية أنتو استبداد يا طغيان يا أوامر يا سيدة دين الليالي ويبتانش مطان صمينية كما هو الرئيسي وقال لي وانا لك علي وقال القرآن كوحينا بريا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وحال لنا بريا مصر النبي إلهي رحمه هي وناكو هدي الحمى الله يدكو السمايون وناك قابل الجود وفضل حمى قوة السمايون أدو وناكو السمايون سهلكو يجي نبار قوسطه حقيقة يدم أحمر ينفرن غنية قفكي ورق إنو كاقر دخلاء إنو مشكلتكو السمايون لكن الكوسكا كان إلى لنا يوصلها دو أرقو صندوناون أدو وناكو السمايون وحاوالا قفكا إن صغير عادي يسوسي ودوانسا قفكا marka hore isku wanaagsantiin hadaad wanaag u sheegayso dawuxu ka rajaynayay ilaa walba wixii xiriirkeeda ka dhaxeeyay wanaag u muuha marka hadaad wanaagiina ka dhaxeeyna wanaag u soo sameeyay walba rajaynay laakiin qofku haduu dhib idinka dhaxayso warkayay inuu dhib ka tirsanayso haddana uu isagu ugu jawaabo wanaag waxay noqonaysaa in isku soo dhawaanshiyo aad u badan oo idinka dhaxdhaco awalan hadii haweenka laga tirsadan dhib وحران إن بدنا تخد إذا دوا بالجود ولا بوناك سيقول لي عكرتهم إسكتوا دواشين تكبرني وهي مسؤوليتنا قصارا كمان أنا الله تستنين هنا تسكت إلينا بنعرف بدبادسه إسيان كيكو عاصين إنسانا وحيابا الناس تجيني يكمدي إلينا ونحكيوني إيه الكين يرير كين بقى يعبود إلي نفسي نبى نار تكايل عليه كمان واحد نار تكايل عليه سواحة كمدا مركي كو عاصره حتى لو ندي دكتور ما وامرته كو استعماشي وحال لا اركاين الذنوب وين سي غشو ويا اخركم نار غشو
qoftii ilmaha kuu dhashay, qoftii inta loo habeenay wada joogteen, wax kastoo nolosha ka mid oo idinsoo dhex mara inaad naar ku ridda laga rabo, inaad naar ku riddo laga rabo. sidaa daraaddeed waa inaad isku daydaa inaad u naxdo oo waxaanu dambiga gashay ay naar ku galayso inaad ka soo dhaweyso, inaad isku daydo oo aad wacdido markaas. waayo طاغيه dunida ugu weynaa baa ilaahay yidhi qowl qabow ku dhaha fircawn oo lahaa ana rabbukum alaclaa intuu dadka is hortaago maa calimtu lakum min ilaahin hayri anaaba rabbiya ama ilaaha sheeganayay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi nebi muuse iyo nabiyullaahi haaruun fircawn markaa u tagtaan idhaba ilaa fircawna inahu tagaa, fircawn u tagabaa ilaahay wuu qooqay, ilahay baa kasii markhaati kacay inuu qooqay. laakiin waxaa la yidhi haddana faqulaa lahu qawlan layina, hadal fiican oo qabow oo degan kula xaqaa loo sheegaya, maaha hadalka layinkii maaha in loo barakaynayo baatilkiisa, laakiin iyadoo xaqa loo sheegayo ayaa laleeyahay xaqa si dhimir. cid walba maaha garaaca kani ee qaar ka mid oo anfici kara. garaaca laftiisuna shuruud buu leeyahay. kii soomaalidu isticmaali jirtay de isagu zulmi buu ah. soomaalida waxay idhahdaan nin bay gabadhiisii isqabteen oo dabeetana intuu soo dhacdhaco tuuladii yimi ayuu wuxu yidhi aniga iyo tii reerka joogta ishayne wax lafaha gura ma haysaan buu leeyahay. wuxuu daydayayaa inuu dili doono, dabeetana wuxuu sii daydaya baladu meelaha ka dhow yihi wax lafaha guro oo kaasi isagu diinta meella kagama yaalo. walidalik ayaa nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wadribuuhuna darban gayra mubarix, garaac baa la yidhi garaac aan lafna jebin, bararna keenin, dhiigna qubin. u fiirso, waxay leeyihin waa garaac aan laf jebin, meel la bararin, dhiigna qubin. waayo darbigani maaha bay leeyihin lilqahri walijbaar, maaha xoog iyo qasab gabadha la qasbayo, maaha ihaane iyo duleyn la dulaynayo, waa darbun min ata'diib baa laleeyahy, waa adaab wax loogu samaynayo. walidalik baa ibnu cabaas wuxuu leeyahy inahu darbu bisawaaq bui, waa in cadayga iyo lagu dhuftaa buu yidhi. cadayga intuu leeyahay culamaa ilfiqi qaar kamid a baa waxay idhahdaan waa inaad cumaamada iyo ku dhufato bay idhahdeen oo ku tuurto. qoladaas waxay qabaan ma inuu yahay wax muujin kara waxa ka sida aad uga xuntay iyo inaad cadhaysan tahay. walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy allama yajlid axadukum imra'atahu jalda alcabd walacalahu yudaajicuha min aakhiri yowm, midkiin siduu gabadhiisa nooca ugu garaaca iyadoo laga yaabo habeenka intiisa dambana ama maalinta inteeda dambana inuu haddana wax weydiisto uu galmoodo. waa mamnuuc in laga garaaco dhulka quruxdeeda ah, wejiga iyo meelaha maqaatilka ee halista ah oo dhan. waxaynu leenahay waxay idhahdeen culamadu mar kasta uu suurtageliyay in laga maarmo darbigu, waxaa habboon in laga maarmo. waxaynu leenahay waxaa inoogu filan ku dayasho nebiga calayhi salaatu wasalaam. axaadiista saxiixa waxaa nebigu tilmaamaya, caaisha waxay leedahay maa daraba rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama imra'atan lahu walaa khaadiman qat, nebi maxamed waaligii ma garaacin haween uu qabay iyo qof yar u shaqaynaya toona, walaa daraba biyadihi shay-an qatu ila fi sabiili illah aw tuntahaku xurumaat llahi fayantasimu lilah. weligiina gacantiisaba cid kuma dhufanin ilahay dartii iyo jihaad meel loo galay mooyaane. welibana bay leeday weligii mabuu aargoosanin, xataa haddii isaga wax la yeelo waxyeelku gaasadiisa taanay diinta u dan lahayn, weligii muu aargoosan bay leeday wax lagu sameeyey. waxay noogu filan markaa ku dayasho nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ah inaanu abidkii samaynin ficlada tan iyada ah. laakiin waxay leenahay masaladu wax layska dhagamara maahe, dadka badhbaa daawadeeda ay tay, laakiin dadka oo dhan amase dumarka oo dhan daawo uma wadaha. qayb kamida ayaa dhici karta inay daawadeetay. haddii arinku uu intaa ku gabagaboobi kari waayo oo in la iswaaniyo ama sariirta lagu kala yaro tago ama wax yar la isku yaro tuuro, darbiga kan xataa de waxaan umalaynaya male north america waa isku xukunune, kolley maraykanka qaanuunkiisa u yaala garaacis dumarka waa hadduu mubarax gaadhow, inta ka hooseysa ma aha loogu waxba ma qabto.
وحيرا لو دفتيه وحاسي لو موائنون أما برروا كم موضع أما تبدا كم مقطع أما دلعوا كم موضع مركز بو قانونكو قاعدوا استعمال أنا أبيس مكان بيتي وحين تعكسك حتى جيرلو أبيسكم معها مهما تكن يجع معها قوة طعمية قوة هاني كان يحد عن لكيني وحنا ودو كسرية وحين لأني هدي وحيابها صعد ما يحلو شيء نتلمامني حل نقبك روايات إليه وحليه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال له عليه سبحانه وتعالى حتى كعبصة الشقاق كرقو شقاق ومن الشق شقنا ودنبل حتى كعبصة كلا دنبل مه إن ده قيس يدنو أو بربرة وروح الصادر تنبأ إلى هيلي قف يدا حق يدا كصعدة وريرك كاملة iyo qof ninka xaqiisa ka socdo reerka kamida labadooda waxa laga yaabaa in carabi madax martooka kale markuu bidhaantiisa arkaba inuu iska sii xunbeeyo ama ismadax maro gar qaadan kari waayaa laga arkaa sida daraadeed waxa la yidhi usluub kale haddaba ha la isticmaalo gabadhu waxay ka tabanayso nin ha u sheegato xakam ha usoo sheegato waxay tabanayso o dhan ninku wuxuu tabanayo oo dhanna xakamkiisa ha u sheegto labadoodan kale aan iyagu isu caraysanayn marka ha wada hadlaan oo qadiyadii ha isla eegaan labadii xakam qadiyadii ha isla eegaan halkani ha warramo gabadhu tanbay sheeganaysaa waxan bay ka cabanaysaa waxan bay ka cabanaysaa ninka kalena ha warramo ninku waxan buu ka cabanaya kan buu ka cabanaya kan labadaasiba alla leeyahay subxaana watacaala hadday dhab ahayd ninka iyo gabadhu waxa ay doonayaan iyo reerku inuu yahay inuu islaax iyo reerkan in la dhiso ilaahay baa ballan qaaday in yuriida islaaxan yuwaffiq illaahu baynahuma allah ballan qaado oo yidhi waan iswaafajinaynaa markaasiyo dhibtani way xallilmaysaa markaas baa ilahay wuxuu leeyahy ina allaha kana caliiman khabiira waxay leenahay waxaas oo dhib ah qur-aanku wuxuu sameeyey markaasi xalkuna waa kaasi in solution intaasoo istaba la raaco hadday intaasi suurtoobi weyda marka maxaa la yeelaya intiiba haddii lagu guulaysan kari waayo maxaa la yeelaya waxay leenahay markaana xuluul kale ayaa weli taalla xulusha kale yaalla waxaa kamid a waxa talaaqa loo yaqaano talaaqa wax xun maaha laakiin haddii si xun loo isticmaalo xun yihi xadiidka dadka baray daliishadaan ay yidhaahdaan abgad alxalaal ila allahi talaaq waa xadiidkan saxiix ahayd oo daciif mar hadduu daciifiyana xujo laga qaato ma leh waayo xalaala la neceb yaaban marka horeba jirin wuxuu tilmaamay abgad alxalaal xalaal mabguudina maba jirto الحلال كلها يعني وشيء الله جعله سبحانه وتعالى من الدو حلالي إلى وجعله حلال الله عليه شيء ما شرته وأنا لا ني طلاقه وشيء إسلام ككمله وأنا حل كمله حلال كإسلام كوسودة شيء لكن هذه مسيوس القصة ما هي واحد الشيء كريم الشيء واقع الله تلقى وحكى قبطية إلهي قرآن كيس الصورة كم يدبو مقعاسي سورة قرآن كم يدبو الله إلى هذا محي سورة الطلاق سورة لنا قرآن ما إلهي وحكى والرمية طلاق هدو الشيء قاسي وحور إلى تصينيه وحاو إلى تصينيه إسلام كسيده ووينين يقوليه وحاو إلى تصينيه قوليه اسمه سدايا حتى مركو بربره إن الله سورة لنا سيدة ومقعدها idan gurigu islaamku wuxuu arkaa inuu yahay asaaska ummaddu ay ka koobantahay guriyuhu hadday xumaadaan ummadduna way xumaatay guriyuhu hadday wanaagsan ilaa ummaddu waa guriyihii isu tegaya ummadduna waa beerfagtiyana way fiican tahay sida daraaddeed waxaynu arkaynaa islaamku weynida uu guriga siinayo qadaasada uu siinayo ilaa iyo islaamku uu tilmaamayo ninka iyo gabadhu isu tegooda in cibaado laga dhigay ay xalaal yihiin وفي حديث النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام نقول قبل حلال كاكا هدوط تقولين أجر لو قرية إذن وشيء لن نقول وادبا وكمل من العبادات هل كي تدبروها كيان قبل نقول كيدي وحنين الرئيسية أي أسلام قوة حقنك السلطان لنك يقبله هدي أي وافق سيد سيدي شرع بوها إنه يهي وحا لن نقول وادب سبحانه وتعالى وحنو لاني وحا وتلمامي إسلام قربا قولك إنه تشوكتن نقضة استمرار هي استقرار أي أصلها سيدة درادة با إسلام كوه منعية زواج المتعة
guurka kumeelgaadka ilaa waktiga ay shiicada qaalimka iska isticmaalaan islaamku waa mamnuuc nin iyo gabadh inay yidhahdaan bil baynu isqabaynaa ama sanad baynu isqabaynaa ama 2 casho ama maalin baynu isqabaynaa oo gabadha inta meher la siiyo deetana maalin la isqabo waxaynu naqaanaa inuu mamnuuciyo waayo asalka guurka waxaa looga dan lahaa maxay nolol waarta oo degan oo xasiloon inuu noqdo marka wax kasta oo guurka u yeelaya inuu gooyaa islaamku uga diiday wax kasta oo u yeelaya inuu gooyaa laakiin si wax kasta oo goynaya looga hortagana waxaynu naqaanaa waxyaabaha tirada badan ee islaamku ku wareejiyey oo aan dinadii la xaraam yeelay in waxa la qadsiyo ama la iscaayo in la xaraam yeelay guryaha dadku leeyihiin idan la-aan in lagu galo in la xaraam yeelay guriga qofku leeyahay inaad yar khawsto ama daaqadaha ka eegto in la xaraam yeelay sharci dhan baa loo dejiyey oo usro ku saabsan qaanuun aada u tiro badan leh laakiin haddana islaamku iskama indhatirayo bini aadamka waayo malaa'ig maaha dadkan sharciga loo dejiyey waa bashar basharkana ama ha kala qaldanaadaan ama dhibi ha timaadee la waayi maayo cid dhibi haysato haddaba hadday dhibta tani dhacdo oo dabeetee wacdigii wax anfici waayo oo ajrigii ka guurkii sariirta lagu kala guuraya wax anfici waayo oo garaacii wax anfici waayo oo xakamkii laysu diree ninka iyo gabadhu reerku wada hadleen waxba anfici waayo maxaa la yeelaya miyaa la odhanayaa qasab weeyaane waa ina wada joogtaan qaar baa yidhi caynkaasi laakiin way socon weyde christianityga waa taqaanin inay yidhahdeen dalaq waa la yidhahda ma jire waa inay wada joogaan laakiin waxay ku kaliftaysay maalin boqole uga baxaysay inay ka wada baxaan iminka sanadkan waxa u footeynaya iyo ireland baa waxay u footeynaysaa in la ogolaado in gabadha la furi kara ama ninkay gabadho inay isfuri karaan waa nooc min alcadaab laba qof aan waxba ka dhaxayn in la yidhahdo waada jooga oo ilowbelo waa xabsi kaasi ilan gurigu wuxu ahaa meel lagu dego lagu xasile waa nooc min alcadaab in la yidhahdo ilowbelo qasab baa ku wada joogaysa waxaan leenahay islaamku wuxuu jideeyey talaaq laakiin talaaqu siday soomaalidu u isticmaasho sal iyo asal toona kuma leka islaamku jideeyey u malayn maayo talaaq soomaaliya gashoo dhaca malaa 1% ma gaadho inta si saxa u dhacda ama marka hore u qaldanaa ama dhicistiisa la isku haystaa ama maca alism isagoo xaaraan qofku galay oo dambina raacay buu dhacay dhib unbuu jiraa ka soomaaligu waayo ka soomaalidu may daraasaynba sida laysu furo alla subxaana watacaala suuradatan markuu soo dejiyey wuxuu leey ya ayuha nabiyu ida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihin tawjiiha kan ama guurku siduu u weyn yahay furistu ilaahay khitaabka wuxuu ku jireeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nebiga kaanamaa isaga lala hadlayo un wa min waraa'ihi bay ummaduna ka qaadanaysaa ayaa ilaahay nabiga u yeedho o yihi yaa ayuha nabiyu nabi allah baa la yidhi subxaana watacaala haddaa haweenka furtaan ba la yidhi haweenka waktigooda fura waktiga maxaa looga dan leeyay ma banaana goor walba inaad wax furto furiinku wakti u leeyahy goor walba inaad wax iska furtaa ma banaana waayo waxaa loogu talagalay qofku isagoo caraysan ama iska damdamle ama waxa kan inaanu eray khilaafka kaga dhawaaqin ee waxa la yidhi mar baa jirta wax la fure haddaad go-aan kaa gaadhay iska qarso uno sug markii ay kaa gaadhe waxaa la ogolaya gabadha inaad furto iyadoo dhiigla lama ogola in la furo gabadhoo xaydkiile lama ogola in la furo gabadha oo dhiiggii intay ka maydhatay loo galmooday waxaa la rabaa gabadha in la furo iyadoo intay dhiiggii heshay dabeetana ka maydhatay dabeetana aan loo galmoonin oo nadiif ah markaas baa la rabaa inaad furto walidalik way adagtay haddii goor markaa u inaad kusoo beegato waxaa loogu talagalay inaad fekerto balo ereygani aanu noqon un markii la cadhoodaba wax la yidhaahdee inuu noqdo solutionkii solutionada ugu dambeeyey oo qofku markuu talaaqa sheegayo waa maxay wuxuu leeyahy waa soo xal waaye waxa inbaan isku dayo kanbaan isku dayo kanbaan isku dayo kanbaan isku dayo all this way anfici waayeen way suurtoobi weyd waxaan soo gaadhay markaasi last solution ma aha markaa wax markaad cadhooto afka lagaga dhawaaqo walidalik ayaa cabdillahi ibni cumar baa gabadh furay saxaabigii la odhan jiray cabdillahi ibni cumar markuu gabadhiisii furay wuxuu furay iyadoo xayd leh iyadoo dhiig leh nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuu cadhooday nebigu aad buu u cadhooday dabeetana cumar buu wuxuu ku yihi u sheeg inankaagu ha soo celiyo gabadha haddaba gabadhii la furay
culamadu waxay leeyihiin wuu dhacayaa talaaqaas, laakiin nebigu wuxuu diiday in lagu wado, waayo waa xaaraan qofku galay. sidaas daraaddeed wuxuu nebigu leeyay soo cesho gabadha, murhu falyuraajicha baa layidhi, far oo gabadhii rajactu ha yidhaahdo oo dib ha u qabo, dabeetana ha haysta baa layidhi ilaa intay ka daahir noqonayso. haddii xayd lagu furo bay yidhahdeen waa inuu ninku hayaa gabadha ilaa intay mar labaad ka daahir noqonayso, oo ay haddana dhiig kale ka helayso, oo ay haddana mar kale ka daahir noqonayso. gabadhii xaydka lagu furay wuxuu nabigu yihi far ha soo celiyo, ha haysto gabadha tan, ha daahir noqoto, xayd kale ha hesho, dabeetana ha daahir noqoto, markaa kadib buu yihi hadduu doonayana ha furo, hadduu doonayana ha qabo. taasi buu nabigu yihi waa ciddada ilaahay kitaabkiisa inugu amray. waxaan leenahay markaa waxaa loo sameeyey wakti talaaqu u dhaco, si aanu cadho iyo digdig iyo waxaasi ugu dhicin, qofkoo miyir qabo oo waktigan u hubiyey uu dhaco. taaniyan waxaanu leenahay waxaa la yidhi wattaqu llah, aayaddaasi malaha alfaada ku soo arooray wattaqu llah wattaqu llah wattaqu llah aad bay u badan tahay masale kastaba marka ilaahay tilmaamo, waayo qaanuunku sidiisa isuma ilaaliye, waxaa ilaaliya qofka bini aadamka. qaanuunku wuxuu u baahan yahay in badan qofku damiirkiisa iyo aakhiro inuu ka cabsado iyo waxa ka dambeeya. marxalada labaad waxaa la yidhi haddii aad gabadhii furto, waxaa la yidhi markaaba ma go-ayo furitaankiina, gabadhii oo dhiig heshay oo ka maydhato daahira ama iyadoo uuri leh, labada jeer baa la furi karaa. haddii ay dhacdo oo la furay, waxaa la yidhi faamsikuuhuna bimacruuf aw faariquuhuna bimacruuf, waa intay cidday tirsanaysa, intay ciddada ku jirto. weedhaan ujeeda waa maxay? labada goor ba ilaahay bimacruuf buu yihi, weedhan u fiirso. waxaa la yidhi haddaad furtaanna macruuf ku fura, haddaad qabtaanna macruuf ku qaba. maxaa labadii goorba macruufka loo raaciyey? dadku waxaad moodaa markay isfuraan in loo haysto in la kala go-ay oo xedhiyo fandhal kala dhaheen oo dee dadku isu cadhooday oo wax damboo la wadaagaya inaanu jirin. ma aha. waxaa la yidhi haddaad gabadhii soo ceshanayso rajacto odhanayso, mashkilad maaha, waad soo ceshatay, aayar qab. haddaad kala tagtaan baa ilaahay yidhi idinkoo isu dudaya ama isu cadhaysaan ama caynkaana kala tagtaan maaha, waayo dee ma banaano shareecada islaamiga 3 maalmood wax ka badan 2 qof inay isu cadhoodaan, ama isqaba ama isqabina. mar haddaa muslim wada noqoteen oo mu'mintiin, ma banaana 3 casho wax ka badan inay cadho ku kala maqantiin. 3 casho wax ka badan haddaa cadho ku kala maqnaataan dambiilayaal baa labadiinaba jid. marka waa inaad dambiga iska ilaalisaan. sidaa daraaddeed waxaa la yidhi haddaa kala tagtaanna waa inaad kala tagtaan idinkoo isu qirsan inaad tiin 2 qof oo walaalaa, xuquuqdii walaalnimo isku leh, weliba idinka dan dheeraad oo kale idinka dhexayso. sidaa daraaddeed ba qur-aanku wuxuu tilmaamaya marka la kala tago, masalan haddii ilmo yar oo naaska nuugaya uu jiro, in la wada tashado ilmaha naaska ma ka dayna mise kama dayno. innaga waxaad moodaa kuwa wada jooga inaanay ka tashanin, labada wada jooga inaanay kama tashanin ilmaha naaska ma laga daynaya mise laga dayn maayo. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay labada isfuray weli tale iyo arrin baa dhex taalle ilmahoodii ay wada dhaleen ha ka tashadaan waxa laga yeelaya. ilmuhu intuu yariyey waxaa xaq u leh hooyada shareeca alislaamiya inay hayso, haddaan wax fitna oo dhibaato ka imanaynin. xaddu tamyiiz markuu gaadho ayaa ilmaha doorasho la siiya, laakiin intuu ka yari xaddu tamyiiz waxaa xaq u leh xadaanadiisa hooyadii buu raacaya. ninku anaa dhalay oo iska kaxaysanaya ma jirto, inay hooyadu yeesho mooyaane. hooyadaa loo ogolaya inay hayso, laakiin waxaa la ogolayay de idinkoo walaalo oo dad walaalo oo muslim oo xidhiid ka dhexeeyo dad idinka dhexeeya inaad siina wada tashataan. saas daraaddeed waxaa la yidhi war haddaa markaa isku soo noqonaysaanna idinkoo heshiisa isku soo noqon, haddii ay iska sii kala tegaysaanna kusii kala taga bimacruuf, waayo qofka muslimkii waa qofka kale muslimkaa walaalkii. maxaa kaloo meesha yaalla marka? waxaa meesha yaalla islaamku wuxuu xad u yeelay furitaanka, si aanu u noqonin wax ninku gacanta u iskaga haysto u ku cayaaro dadko markuu doonana uu wax furo, markuu doonana uu iska haysto berita uu soo celiyo, saa damba u iska furo caynkan. waxaa la yidhi talaaqu waa 2 jeer. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. مدة التي عداه مدة التي 2 qof haddii inun cadhadii ka degtay waa first chanski,
haddii markii hore cadho iyo colaad iyo waxa laga yaaba dadku markay dhowr bilood kale maqayin inay isu soo xiisoodaan oo cadhadii baaba'do oo dadku wax wada qabsan karo waxaa la yidhi muddadaa kadib ayaa isqabi karta. weliba ciddadu si labada qof ay isugu muuqan karaan aanay u kala fogaanin waxaa la yidhi gabadhu la furay gurigay joogaysa oo raashinkay xaq u leedahay oo 3 bilood ama inta ay tirsanayso ciddadoo dhan meeshaa la wada deganaanaya. innaga waxaad moodaa gabadhu markaa la yidhaha waa lagu furay intay xamaanteeda urursatay inay tiraa maxaa yaalla guri laygu furay anugu maxaa ka qabanaya. ka lagu furay bay joogaysaa mana banaana inay ka baxda kaasay joogaysaa nafaqa iyo wax walba ku leedahay waana wakti la fursa la siiyey oo labada qof bal inay fakeraan oo kala degaan oo mar dambe ay dib u heshiin karaan. waxaan leenahay marka طلاق waa laba goor baa la yidhaha طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. labada goor maxaa looga jeedaa waa laba jaanis oo ilaahay ku siiyey. iminkaad wax furtay mar dambe heshiiseen waa isku soo noqotay mar kalaad furtay muddaa kala joogteen waa heshiiseen waa isku soo noqotay intay ciddada ku jirto waxa kugu filan inaad tidhaahdo waan ka noqday rajactu gabadhaydii waa soo ceshaday oo laba markhaati loo sheego. hadday ciddada dhaafto waxa kugu filan inaad sidii laysu guursan jiray ay isu guursataan jaaniskaa kaa lumayna waa lagugu tirinaya unoo laba jaanisoo kalunbaa ku hadhay. laakiin dadku soomaalidu misuskay samaysa waxaa kamid a 3 dalqadood waxa la yidhahda wax ku furtaa. 3 dalqadood macnaheedu waa maxay? dadki bar baa waxay haystaan haddaan 3 la sheegin inaan waxbaba adeen dhicin ay mushkilad tahay inuu 3 waxa weeyaan gabadhiya waan ku furay jaanisyadii ilaahay siiya mustaqbalka ahaana ee suurtagalka ay noqon lahayd inay isguursanana jaanisyadana waan iska lumiyey oo maxaa ku holomaysa gabadha waan ku furaa ku filan way furmaysaa dadto waan ku furaa ku filan laakiin labada jaanis dambe ay isku guursan karnana waan ku furay intay 3 daba furaan uu barinta ku oranaya sheekh waan yara caroodoo gabadhu baan isqabano balqiin ibn Abbas loo midiyay walaalay markaasuu ibn Abbas waa dee uun dhibaataan qabsato wakaasoo anigoo gabadhii 3 baan ku furay ee wax qiila may haysaa. ibn Abbas wuxuu ku yidhi markaas midkiin buu yidhi intuu sameeyo axmaqnimo waxa ugu dambeeya yani axmaqnimo dhammaanteed intuu midkiin sameeyo ayuu dabatanay maraya isagoo le buu yihi ya ibn Abbas ilaahayna kamuu biqin buu yihi waar alla kamaad biqin buu yihi ilaahayna wuxuu yihi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja adigu alla kamaad cabsan makhrajna kuma hayo gabadhuna way kaa furantay ilaah buu yihi nacasnimada igala tag buu ku yidhi ibn Abbas. yani qofku marka hore axmaqnimo tahay jaanisyada mustaqbalkaa lugiya jaanisyada maxaad ka sheegi dad gabadha fursayda waa ku furay dhooska kala taga ilaa saasaa ku kala tegaysaan waxay isugu kiin xidhan oo kale ma jiro. laakiin ifaat oo intaynu kala tagnay beri uunaynu maagi lahayn dib isu guursano kaana gabadhiya waa sii diiday inaad tidhaahdo waa wax faalxun. gabadha lafteedana waxaad moodaa inay ka dhaadhacsantahay haddaan 3 la sheegin inaan waxbaba dhicin oo dee furitaan inaanu jiraynin. waxaan leenahay islaamku intaan oo jaanis isagooyna siiyey waxaa laynoo siiyeyna in lagu ilaaliyo duruufta reerka mar walba. mid kale ayana jirta waan jeclay inaan magacaawa sheego. gabadha iyada maxaa gacanteeda ku jira? dee ninkii la siiyey hadduu dhibtaa la kulmo oo xal la waayo inuu wax furi karo. hadday gabadhii dhibtii la kulanto oo ninkiina wax furi waayo see la yeelaya? hadday gabadha tahay ta mushkiladu haysata oo ninka xaggiisa mushkiladu ka socoto oo xalkiina la waayo ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. آيات كثيرة وقلت المامية hadday gabadhu ninka ka cabsato oo isaga dhigta xaqiis ka timaado waxyaabaha u banaan oo quraanka ka warramay sunnada nabiga alayhi salatu wasalaam. awalan gabadhu biduni sabab inay tiraahdo talaaq baan doonaya ma banaana. waayo nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة. وحديث صحيحة وشنت قوريين إمام النسائي موياني البانيني وتصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام قبري هدي من كيدا ويدي ستفرطان إذا وح سبب يشرين شنada inay urisaa waa ka xaaraan buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam tay guriga burburintiisa iyada ku dhaqaaqo. laakiin hadday sababa jirin gabadhu way yeeli kartaa. waxaa jira gabadh la odhan jiray imraatu Thabit ibn Qays
ثابت بن قيس بن الشماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي هوينتو قبي صحابي كمي هوينتي سيبها النبي أوتمي وعيت الإله رسول كيسيو ميكا ثابت الله إلاده ما أعطب عليه في خلق ولا دين ميكا ثابت الله إلاده ويت لي أخلاق حمكم هيو هي الدين حما مدنبا لما لا عبيت لي بدنا كل عيبين معي ولكني أكره الكفر في الإسلام وهذا إلا بدي منا كل عيبين وحلا لكنك وحلا وجوستنا يلقو قيماني يا محاها عمن ترضون دينه وخلقه قفل الدين في أخلاق الشرع للغي قبل هنا وحي الشيغان إنسا لبدا مسأله إن أنا من النظر كعوانين لكن بهذا قبل وحي لا دي قال نمو إسلام نمو كل احتستان نعبي بيت كفران العشير السمائية يعني قبل أن وحي كعوانيسا سكس طبعا أقول بعدين ننكي با قلبي يدك حسيلي واي حسيلو لدرئة وبضن بيدرين وحي كلو دريميسا إنه نقد حقوق كلها واجب كنت حقوق دليل الفلس وحي مركز كعب سقفته وحويا إنه حقوق راسي واجب يقطعي وأن أقهي حدنا الحقوق دي فلوايا وكفران العشير وكفر النعمة قال لماذا الإسلام لماذا كل حشرتان دورين بيلات منك كان محي كديد ثابت بن قيس الليلة ثابت بن قيس وأنا نحول عليه وقبلت أمس المهروسي باردا أي مهروسي ولن أفتهله ووحوها خطيب أصيانك النبي عليه الصلاة والسلام نقول النبي ودن شرير خطبة هي أصيانك هو أيها هو خطيب رسول الله ولن هذا فصيح أفتهنا وصفي عن وحوها عديكرا لكن كان وحا ليلة هذا وحوها ننقابا وحق مدى وحيقة ويرفض يعني شكل جنب العالم كان قرصا أيان قرح بدني رواياتك الصحيحة انت بدل قبل إن الشكل شاكي ما شاكان لكن إمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس بسنده روايات كسر رورينيو أي واحد شاكان كاستصنا كذا كوالا قعدنا إن يتلي واحد كيسوا أفرن الله صوت صعداء وعاكيو قابا أو فرح وعمل شاكتي قبل لي نفسي يقول نكي ويكو حسيني dabeetana waxay ogtahay xuquuqda islaamku uu ku leeyahay gabadha sare ninkan daynay بدون ذنب inay wax iska dalbataa inaanay meesha habboonayn markay arrintii ku xasili weyday ayay nabiga u sheegay maalinkaas uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jiri waxa la arkaa gabadh oo gabadh diin leh oo muslimada wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal waxaad u yeedhaa bal isagii u yeedha buu yidhi waxaa loo yeedhay ثابت بن قيس بن الشماس أي الله يرى إذا تنوح النبي يقول ورقوانة هديه يوحي أتيسي يكوي عليسه ما يسكتي دينس آمن لله رسول كيسيو كما يقول يدوح لنك كان يسيو عليس لأنه خرش بو قلوم هربو بحيوه هربو عرصته وكانوا كان السيسي دي مادقة هيا وحقوا عرصتا كان العادوك وقوا عرصته وانا بغبشه إما أنا واحد ربطاينا كلا تكتان استجانا النفقات واجب كوهاي ما كذلك وين له عليا وين تيسوي سنتك لو وارستان طبعا هو كان سيا إلى هذا اللبية وين هلا عوض خلعك كسب الله يرضى قبل لي مركها واحد النبي وخيري نانك ما وعد النساء وهي بيرتي لما هذا الدين كعبنا وخلاص كعبنا وحبك كعبنا هذا نادي جدا تهين لنا قناته ولا دجناته ونوع ما نفتاده واحد درتي ما علينا يسابوا كل وحي بيرتيسي هابت إليه رسول كيسيو بيرتا وين هلقا كتالو مهريسي وكاسي بيرتيسي هاقاطو يقول حقولي وارقاطة بيرتا دوفر دويتا وقاطي بيرتيسي وفر مثلا تدخل العلم بالله إلاغا قول نفسيات يدا ديتيق ويرى إلى هذا الحد يقالو حاقوا إلى ذين قلع طلبات ثانيا نوحك لوقا بانه بنام فسقين وعطينو لنك قعنتي سيد طلاق ما كتشره علينا قوانا قعنتي دي وحا كتشره فسقين وانا وصل وانا دعويد ninkii baa waxa ku dhacay xanuun adag oo aanu de suurtagal ahayn gabadhii uu galmoodo ama waxbaba uu soo waayo de biilkeedii baa la gambaba laga waayay wa saasi haday dhacdo waxa xaq u leedahay markaas inay dalbato in la fisqiyo fisqinta tan markaa qaadi islaamiya waa in maxkamad tagtaa maxkamadda waa inay cadaysaa waxaan gabadhu sheegaysaa inay jirto kadibna waa in gabadha la siiyo warqad fisqin oo ah in ninkii laga furo
oo qaadigu ka sii daayo waxana kuma leen la oranayo soo celi ma jirto marka waa iyada jaanibkeedii wax ka yimi ma jirto waa gabadh raaliyo diyaare iyadii baa waxay weyday wixii xaq ay lahayd markan waxba male inay celiso iyadu waliba xuquuqda wixii ka maqnaana waa dayn ama waa inuu la helaa saadaradeed markaana xaq bay u leedahay marka lana xaq bay u leedahay haddii marka hore ay shartisato gacanteeda loo geliyo dii la yidhahdana gabadhiyay amruka biyadik markaa doonto isfur adigu markii hore caynkaa lagu yidhi markay isqoonsatay inay isticmaasho ila absolute powerka waa la siiyey waa loo wakiishay xaq bay u leedahay waa isticmaali kartaa kaana laakin waxaan leenahay haddii arrintu iska yahay biduuni sabab gabadhu inay talaaq iska dalbataa waa dembi saa daraadeed baa nabigu wuxuu leeyahy ayuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaq min gayri baas faxaraamun calayha raa'ixatu ljanna gabadh kasta oo ninkeeda ka doonta inuu furo iyadoo wax dhibaati aanay jirin jannada ma ursuu nabigu ku tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay hadday mushkiladu xagga ninka ka timaadana waxaa la sameeyey xal uu yeeli karo oo kaa talaaqa hadday xagga gabadha ka timaadana waxaa la sameeyey xal ay isticmaali karto oo ah khulcin iyo fisqin iyo inay marka hore sharta sii dhigatay labadaasibana waxaan leenahay waa xalka kama dambaysta ee waxaa la dhigay xalal afar ah ama saddexa oo kasii horeeyey xalalkaa saddexdii kasii horeeyey waxaa la dhigay baynu dhi shay wiqaaya precautions oo ah inta aanay waxa kaniba dhicin wax lagaga hortago haddii intaasi islaamku uu sheegay si toosa loo raaco mushkilaadka reeruhu way xalilmayaan wax problemina meesha kama muuqanaya furitaankaasina ma aha wax cayaarta gala wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam saddex shay dhabtooda iyo dheeldheelkooda waa isku mid guurka iyo furitaanka iyo ceshadka hadduu nin uu kaftan u wada yidhaahdo waxaan ku siiyey nafsaydiiyo ma guursato kalena waan guursay guurkaasi u xidhfay meerkana waa lagu leeyay ninka gabadhuna way u joogtaa hadday iyadu raalli ku noqoto kaftanka ma galo hadduu saasi yeelo waxa qurin waxa weeyaan hadday gabadhu diido lama qasbayo markaasi waa uu buraya laakiin hadday gabadhuna ogolaato already wuu xidhmay kaftanna ma galo talaaquna kaftan ma galo xelaa kufraaciga ma galo haddaad tidhaahdo oo waxay sii noqdaan xelaha furan xela furanku ma galo isaguna maxay kaftanka ma galo rajcaduna ma gasho waan soo ceshaday gabadhii markuu furay intay ciddada ku jirtay rajcada iyo casaaqa in la furo in la xoreeyo qof adoon ahaa waa iska cayaaraya maan xoreynin ma soconayso kuwaasi wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dheeldheelkooda iyo kaftankooda iyo dhabtoodu inay isku mid tahay marka arrinka talaaqu maaha arrin lagu kaftamo maaha arrin si fudud loo yidhaahdo maaha wax marka la cadhoodo un aad cadhooto xal laga dhigo la yidhahdo waan cadhooday hadhow yidhahdo gabadhii baa fureen sheekh qiil ma haysa qiilalka inta ka horeysaa lagu haya inta aanad adigu dhawaaqin ayaa qiilal badan lagu haya laakiin mar haddaad adigu yeedhiso dee adaa yidhi qiilashaa uma baahniye ha lagu kala dareero meesha sida daraaddeed waxaan leenahay mashkiladeeni cid unbaa tacasuf ku samaysay ama xadgudub ku samaysay wuxuu sharcigu sheegayay ama dhul gaal aan joogno ama dhul muslim aan joogne haddii aynu isku dayno inaynu raacno waxa islaamku inoo dhigay waxaa aada u fududaanaya in qoys muslima oo wanaagsan oo dhisan uu jiri karo waxaan aada u rajaynaya intiina maqashay iyo aniga iyo inta kale u gaadhaaba inay alle kaga cabsadaan guryahooda oo la yeelo waxa islaamku jidayay wallahu aclam wabilahi tawfiiq